Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan nabadda wadayaal ku soo dhawaada warka wadajir news. Qodobada ugu waaweyn ee aan faahfaahin doono waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho oo la soo sheegay inay gudaha u galeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Waxaa laga kala cararay garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho fariin ka timid beesha Xalane oo lagu muujiyay in kooxda Al-Shabaab ay gudaha garoonka diyaaradaha Dancadde magaalada Muqdisho ay ku diyaarinayaan qaraxyo iyo shaqaalihii oo la kala fasaxay laguna amray inaysan soo shaqo gelin. Xogihii ugu dambeeyay isku socodka garoonka diyaaradaha Dancadde magaalada Muqdisho ayaad warka wadajir news ku daawan doontaan. Cod sir ah oo laga helay heshiis hoose oo ay dalka Turkiga ku gaareen madaxweynayaashii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Haddaba waxaad warka wadajir news ku daawan doontaan daawadayaal waxyaabaha labada mas'uul isku afgarteen iyo sababta loo shaaci waayay in labada mas'uul ay wada kulmeen. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo wajahaysa mooshin culus iyo abaabulka mooshinadaasi oo ka socda Nairobi, Muqdisho iyo Turkiga ayaa dhanka warbixin doona shakhsiyaadka gadaal ka riixaya mooshinka ka dhanka ah xukuumadda Soomaaliya. Qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa haddii laga helay baweyne. Halkani waa wadajir news. Daawade marka aad dhameysid muuqaalkan waxay xogaad haysid qaybta commentiga nagu reeb adigoo mahadsan subscribe inoo saar like-tana waa inoo dhiirigelin. waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh. Garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho ayaa xilligan qarka u saaran inuu u xirmo sabab amni darteed. Fariin ka timid xerada Xalane ayaa lagu ogeysiyay wasaaradda hawada in kooxda Al-Shabaab ay wado damaca inay qaraxyo ka fuliso gudaha garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta ugu soreeyay wasaaradda hawada ee degnaa garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho ayaa ka guuray, waxaana intii ugu badneed la fasaxay shaqaalihii ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Si aysan indhaha caalamka u qaban in dowladda Soomaaliya ay ku fashilmatay arrimaha ammaanka ayaa waxaa amniga guud ee garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho lagu wareejiyay ciidamada ATMIS ee ka socda dowladaha taageera Soomaaliya. Waxaana maalintii saddexaad aan soo shaqo gelin shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Qaybaha ugu muhiimsan ee garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho ayaa la xiray, waxaana dowladdu yareysay diyaaradaha soo degi jiray iyo kuwa ka bixi jiray garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Garoonka Dancadde oo si joogto ah habeen iyo maalin u shaqeey jiray ayaa waxay dowladdu ku dhawaaqday in xilliga habeenkii uusan shaqeyn doonin garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Waxaana laga baqdi qabaa in garoonka gabi ahaan albaabada la isku dhufto oo lagu kala cararo maadaama sida caalamkii sheegeen ay kooxda Al-Shabaab ee gudaha u soo galiyeen qaraxyo waaweyn garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Iyada tababaran ayaa lagu daadiyay jigboontiyada koowaad ee laga soo galo garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ciidamo gaar ah loo xilsaaray inay toogtaan qof walba oo laga shakiyo. waa tahay wararka wadajir news ayaa daawaneysaan daawadayaal. Kala fadhiga labaad ee golaha shacabka marka uu furmo dabayaaqada bishan Oktoobar ayaa la warinayaa inuu la kowsan doono mooshinno kala duwan oo laga keeni doono xukuumadda iyo laanta fulinta madaxtooyada Soomaaliya. Xogta la ogaaday ayaa sheegaysa in 25 Agoosto markii la xiray kala fadhigii koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka ay jireen kulamo kala duwan oo xubno ka mid ah baarlamaanka ku yeelanayeen Nairobi, Muqdisho iyo Ankara ayna ka hadleen mooshinno la diyaarinayo. Wararka aan ku helnay sida hoose ayaa xaqiijinaya in mid ka mid ah mooshinadaasi la doonayo in xilka looga tuuro gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacadiya Yaasiin Xaaji Samatar oo kadib la rabo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mooshin laga soo gudbiyo. Akhbaaraadka la ogaaday ayaa sheegaya in mooshinadaasi loo xil saaray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Cabdullaahi Abshirow, waxaana jiri doona dhaqaale ay dowladaha Carbeed ku bixinayaan dhaqangelinta istaraatiijiyadda la dejiyay iyo in meel mar laga dhigo mooshinadaasi. Afhayeenka baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa muddooyinkii fasaxa baarlamaanka ku jiray wuxuu kulamo gaar ah la lahay madaxda dowladda iyadoo khilaaf hoose la sheegay inuu ka dhex jiro isaga iyo agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad
mooshinada la diyaarinayo ayaa xitaa gudoomiye Aadan Madoobe la rabaa in daaqada looga saaro, balse waxa uu ka feejigan yahay wax kasta oo dhankiisa tilaabo loo soo qaadi karo isagoo sameysay tiirar difaaci kara. Cabdulaahi Abshirow ayaa la hordhigay dalabka ah inuu majraha u qabto mooshinadaasi haddii uu diido inuu la wareego gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaana ugu horeeya in laga tuuro xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Saacadiya Yaasiin Xaaji Samatar. Xogta hoose ayaa tilmaamaysa in Saacadiya ay ka war heshay mooshinka iyada looga tuurayo, waxa ayna baalal ay ku duusha ka dhex samaysay baarlamaanka gudihiisa si ay codka kalsoonidu ugu diideen markii howshaasi mooshinka la dhex keeno golaha, iyadoo dhanka kalena garab weydiisatay ururada haweenka iyo hablaha siyaasadda ku jira ee hay'adaha dowladda. Shir ka dhacay Nairobi isbuucan ayaa lagu go'aamiyay in sida la qorsheeyay howsha u dhacdo, waxaana arrintan sheeda kala socda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo qudhooda wajahaya culeysyo iyo cabsi baarlamaanka lagu kicinayo mowjadaha siyaasadeed ee bishan Oktoobar la kooso doono Golaha Shacabka iyo mooshinada la diyaariyay ayaan la ogeyn sida ay ka gudbi doonaan xubnaha la rabo in lagu rido. Xogaha qaar ayaa inoo sheegaya in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la kulmi karo dagaal siyaasadeed ka baaxad weyn midkii Xasan Cali Khayre lagu riday xukuumaddiisii 2020, waxaana Golaha Shacabka uu yahay mid ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafad, balse hadda u muuqato xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in looga sii adkaanayo markii la joogo baarlamaanka. Ilaa hadda lama oga dowladaha dhaqaalaha ku bixinaya mooshinada laga bilaabayo Golaha Shacabka markuu furmo kala fadhiga labaad, iyadoo dadka qaar isweydiinayaan xilligan waxaa ku soo aadiyay jahwareer siyaasadeed iyadoo waddanku uu ku jiro marxalad dagaal oo la rabo in Al-Shabaab looga xoreeyo. waxaa la ogaa doonaa halka ay ku dambeeyaan mooshinadaasi la diyaariyay. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa warka Wadajir News. Nabadgelyo.